ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo safar dhulka ah uga soo ambabaxay magaalada Cadaado ayaa waxa magaalada Cabudwaaq ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka Galmudug wasiiro xildhibaano maamulka degmada Cabudwaaq iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare Khayre ayaa fagaraha magaalada Cabudwaaq waxa uu khudbad uga jeediyay kumanaan dadweynaha oo isugu soo baxay soo dhaweyntiisa taasoo uu kaga hadlay qorshaha safarka uu ku marayo deegaanada Galmudug dadkii soo dhaweeyay ayuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uga mahad celiyay soo dhaweynta weyn ay u sameeyeen isagoo soo gaarsiiyay salaan uga siday madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee reer Cabudwaaq sida sharafta leh noo soo dhaweyseen madax iyo shacabba waxaan leeyahay haddii qof Soomaaliyeed oo halkan jooga ama dalka dibaddiisa jooga oo halkan naga daawanayo uu shaki uga jiro in dawladnimada Soomaaliyeed ay hana qaaday tusaalihii maanta ayaa hortiina taagan yahay haddaad walwal ka qabteen inay Soomaaliya hore u dhaqaaqday kaalay Cabudwaaq soo daawada haddii aad rajaba xumo qabteen eega indhaha wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee Cabudwaaq iyo jacaylka ay dawladnimada u qabaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka codsaday reer Cabudwaaq inay qayb ka qaataan dhismaha dawlad goboleedka Galmudug oo loo dhan yahay sal adag leh kana shaqaysa danaha reer Galmudug wada shaqayn wanaagsan ay kala dhaxayso dawladda federaalka Soomaaliya waxaan rabaa inaan idin mahad celiyo intaas ka sokow waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado waxyaabaha soo socda waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado inaad noo ogolaataan aniga iyo wafdigayga anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca madaxweynaha iyo kan xukuumadda inaan idinla dhisno Galmudug nabad ah inaan idinla dhisno Galmudug laga daaweeyey khilaafkii ragaadiyey inaan idinla dhisno Galmudug wada jirta oo mid ah inaan idinla dhisno Galmudug leh maamul loo dhan yahay oo aan sadbursi lahayn iyo inaan idinla dhisno Galmudug xiriir wanaagsan la leh dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muddo 5 maalin ah ku sugnaa deegaanada Galmudug waxaana magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado kulamo wada tasha kula soo qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada siyaasiyiinta ayaa intii uu joogo Cabudwaaq waxa uu sidoo kale la fariisan doonaa bulshada deegaanka si taladooda loogu biiriyo dhismaha dawlad goboleedka Galmudug oo loo dhan yahay isla markaana ay hadda ku soo wajahan tahay doorashooyin Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Cabudwaaq